بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan wadnaa taxanihii aan uga hadlaynay magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo aan mid walba intii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo fududeeyo aan sharaxaad kooban ka bixinaynay. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee ah Al-Jabbar. Al-Jabbar waxay noqonaysaa in Allah subxaanahu wa ta'ala uu yahay u kabe oo ku kabayo wax kasta oo aan noloshaada uga baahan tahay, wax kasta oo ay ruuxdaada u baahan tahay, wax kasta oo jirkaagu u baahan yahay, wax kasta oo ka halaaba ama ka jaba ama ka hoos dhaca, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala asaga ku toosinaya oo ku kabaya. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka uu wax ku kabayo asagoon daawo isticmaalin ama ku daaweynin uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku kabaya. يعني إلهي سبحانه وتعالى وأكبئ أنو باهنين إنو داو كسيو ستوسا وحي أكامقنا ديق أهان كو سينيا كو ديقيا كو فضينيا ودادي أكوهر لهين كو سمينايو. سيدا درتيد إلهي سبحانه وتعالى وحكستا وحو إسوه حري وإسوه كبكبي سيدا إسوه هبوينهين وإسوه آذيان. هدي عبسيكو هايسو وحدو باهنتها الدقناشو إلهي سبحانه وتعالى باكو كينيا ودقنانتي مسكح هذا كو كبايا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. حالد مركا كجرت عبسية أول والله وحاوبها هانتها إني كوت مادو حالد كلا أو لغو ريجي أو أهدقناشو يحسلوني سيدا درتيد ودعاء مر والبا أنو صلاة كو أخرنو ومركي لبدا السجود لحظو ذا دعاء أن أخرنو رب اغفر لي وارحمني واجبرني إلهي سبحانه وتعالى أيضا بداف إيه نحريسو إيه إرزاق إيه توسي وهداية إلهي إنو كسيئة إيه إلهي وإيكب وحال عليه وحي إيكا كالقوة أما سيون إيكا النقضة إلهي سبحانه وتعالى أساقا كبأوه. النبي عليه الصلاة والسلام بو دعاء أو أخرين جري سجود ديسا إيه ركوع ديسا وحكو أخرين جري سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إلهي سبحانه وتعالى أقرأي إنو يهي إله أمديسا خلقيسا أنكيسا أودن وحي كلمان أودن مايسترا أو سيا. صدرتيد إلهي سبحانه وتعالى سيابك للدون بأنك أو أبوري سوق كبي. حيابها وسكو كبي وحاكم ذا روح ذا إيه جسدك. روح ذا قارب إلهي وأبوري جركي مركي لأبوري بالله سكو كبي. وأنا لبا شيء أن كلام مارمينين أو أن كلام فقينين إلى لقارو وحل إله هذا جيرده. يعني مركي جيرده تمادو جيرده لغو شيء waxa weeyaan kabkii isku xirnaa ee ruuxdii iyo jasadkii la isu keenay ahaa ba markay kala go'aan oo kabkaas meesha ka baxo ba waxa la yiraahdaa waa dhintay ruuxa markuu dhinto marka naftiisii iyo jirkiisii la isu keenay la isku kabay ba la kala jaray markii la jaray waxa isu wareegtay inay naftii iyo qofkiiba la yiraahdo wuu dhintay qofka. sida darteed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu dadkiisa iyo khalqigiisa ku qasbay oo ku abuuray inay asaga u hoggaansamaan ayagoo raalli ah ama ayagoo ku qasban. wakan Ilaahay quraankiisa uu ku yiri walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha. sida darteed qofkana waxa laga rabaa asaguna maadaama Ilaahay diin uu soo dejiyay inuu aqeedadiisa isku kabo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu aamino akhlaaq fiican uu yeesho Ilaahay uu rumeeyo waayo naftaada ruuxdaadu waxay u baahan tahay in la kabo. waxyaabaha kale oo Ilaahay isku kabay waxa kamid ah ummadda xiriirka la leedahay, dariska xiriir baa la leedahay, waaridka xiriir baa la leedahay, qaraabadaada xiriir baa la leedahay. waxaas oo dhan waa wax iskabaya nolosha bini aadamka oo dhan ay ku dhisan tahay. waxyaabaha Ilaahay uu isku kabay waxa kamid ah wax walba inuu u sameeyo lamaano oo rag iyo dumar wax walbana ay isu yeesheen lamaane. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وماشي ay ka iimaanayso aabaha iyo hooyada isu tagooda inay ilmo ka dhalanayaan. ilmahaas ka dhalanayana waa markii labadoodii la isku kabay natiijadii ka timid oo ah ilmo inay meeshaas ka yimaadaan oo noqon kara lab iyo dhadig midkay noqdaanba. Ilaahay wuxuu sidoo kale isku kabay qofka bini aadamka iyo baahidiisa iyo xalkeedina waa la isku kabay. qofkan wuxuu dareemayaa gaajo waxa xalkeedu noqday inuu cunto helo. wuxuu qabaa baahi jinsi ah waxa loo sheegay wadada xalaasha uu ku gaari karo. wuxuu qabaa cabsi waxa loo sheegay sidoo deganaasha uu ku heli karo. xataa kabka caadiga ah oo jirkaaga ku dhaca hadii meel wax ka dilaacaan dhakhtarku uu ku iimaanaya
jirkaaga unbuu isku celcelinayaa ma ahane asagoo wuxuu kuu keeni kara lama arko laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa dhakhtarkaasu cilmigiisii iyo aqoontiisii waxay u gudbaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax jirkiga wixii ka halaabay intuu isku celiyo oo isu kabkabo uu meeshaa ku keeno haddaa xataa u timaado nolosha asaasiyaadka ay ku taagan tahay waa xisaabta marka aad maqashayna waa wax la isu kabay 1 2 laga dhigay 2 4 laga dhigay marka wax la xisaabinayana mitir iyo kilogram iyo intaas wax lagu xisaabiyo waxaas oo dhan marka wuxuu soo kabkabay si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqigiisa wax ugu sahlanaadaan haddii wax yar ay uga hoos dhacaanna meesha ay u doonanayaan ay garanayaan sidaa darteed qofka muslimka waxaa la rabaa inuu asaguna qayb weyn ka qaato doorkiisa wax kabista oo ah adiga waxaad ka shaqeynaysaa inay noqdaan ficil wanaagsan oo khayr ah ficilka wanaagsan oo khayrka ah dadka kale wax u tarayaan qawlun macruufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun haliim sidaa darteed qofka inaad hadal wanaagsan ku dhahdo sadaqa bixiso wax siiso waxaad ka baysaa qof aad arkayso inuu u baahnaa hadal wanaagsan ama uu u baahnaa wax siin wanaagsan waxaa kaloo laga rabaa inaad ka shaqeyso ummaddu inay rajo leedahay hadaa aragto qof rajadiisa ka sii dhamaanayso waxaa la rabaa inaad rajada u soo celiso aad rajadiisa ka soo kabto oo aad tiraahdo war ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa ha ka quusanin laa taqnatu min raxmatillaah haddii mas-uul aad tahay waxaa laga rabaa meel kasta oo fasaad ka jiro inaad inta ka saarto aad islaax u bedesho suubanaan iyo wanaag aad u bedesho oo haddii qof aad noolayso waxaa la mid tahay qof dadka oo dhan oo nooleeyey sidaa darteed waxaa laga rabaa inaad mar walba kabto bulshadaanu sida jiritaankeeda iyo amnigeeda iyo nolosheeda iyo wadajirkeeda uu u xoogaysan lahaa waxaa kaloo laga rabaa adiga markaad muslim tahay cilaaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala kaala dhexaysana inaad kabto see ku kabaysaa inaad ilaahay daacad u noqotaad ku kabaysaa inaad jidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam raacdaad ku kabaysaa waxaa kaloo lagu faray inaad ku kabto إحسان الناس سميسو أو دتك أو ناجسو إلهي وكان قرآن كيس كلها وأحسن كما أحسن الله إليك يعني وناجي وناج السماء سيدا أذيك بإلهي سبحانه وتعالى وناج كو سمي وحكستنا إلهي سبحانه وتعالى مخلوقاتك أسمي أو دان بوحي أسمي هبك إكوكلا اللي حن لهايين وحي كلمنا اللو رادين لها حتى النباتات كصباحي وحلو سمي هبك إكو صباحي لهايين فسلكه ينابيع في الأرض وحكلو لغو سمي diinta adiga ku soo gaaraysa waxay ka saaraysaa mugdi waxay ku saaraysaa iftiin sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkiisana dadka uu isugu sakhiray wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara daa'ibayni wasakhara lakum al-layla wan-nahaar sidaa darteed dardaaranka la rabo inaad qaadato waxa waaye doorka bulshada aad ku leedahay waa inaad noqotaa kabe haddaad rabto inuu ilaahay adigana kuu kabo wallahu tacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmatullahi